wafdidan oo ahaa guddida nabadgelyada ee gobolka Sool oo uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jire ayaa gaadhay deegaanka Jidbaale ee gobolka Sool waxaana wafdidani kamid ahaa maayarka degmada Laascaanood taliyaha qaybta booliska taliyaha aaga bari ee ciidanka qaranka taliyaha nabad sugidda ee gobolka Sool abaanduulaha qaybta toddobaad iyo gudoomiyaha degmada Yogori iyadoona ujeedka safarkoodu ahaa adkeynta iyo xoojinta nabadii ku soo dhamaatay deegaanka Adhe Cadeeye ee u dhaxaysay bulshada deegaanadaasi wada degta waxaana guddida nabadgelyada ee gobolka Sool shir la qaadatay waxgaradka iyo odayaasha deegaankaasi oo ay ka wada hadleen sidii loo ilaalin lahaa nabad ku wada noolaanshaha deegaanka Jidbaale iyo deegaanada ku xeeran maayarka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale iyo gudoomiyaha degmada Yogori ayaa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay saad aragtaan waxaan joognaa magaalada Jidbaale saakan halkan soo gaarnay waxaan wada hadal la yeelanay odayaashii deegaanka Jidbaale waan is wareysanay si fiican waan isku wareysanay kulli waxa la iska wareysanayay si aan baqaadka shirweyni lagu soo gabagabeeyay magaalada Cadeeye ku soo dhamaaday sidii loo sii aan baqaadi lahaa wixii inta la dhameystirayo oo gudiyadii ay marayaan deegaamadiina in nabadgelyada la ilaashado oo laga wada shaqeeyo labada dhinacba muxuu ahaa nabadda la adkeeyo nabaddu waa muhiimadeena koowaad waxa bini'aadamku ku nool yahay marka shirkaasna si fiican buu nagu dhamaaday odayaashina si fiican bay nagu warameen hawshii ayaa loo yimi si loo damiyo oo loo soo afjaro oo looga hortago oo aan wax dambe u dhicin halkan shir baa lagu qaatay maamulka iyo labada beeloodba halkan xoogay shaqada yari ka aloosmaysay taliyaha aaga bari ee ciidanka qaranka sareeye guuto Cali Barre Xuseen iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool gaashaanle sare Axmed Cabdilaahi Cabdi in aan deegaankaasi laga ogolayn wax kasta oo khalkhal gelinaya nabadda halka ceelka Jidbaale iyo ceelasha kale midna in laga ogolayn ama laga dul qaadanayn in hub lala yimaado ama ciidan hubaysan yimaado ama kuwa ku nool ay hub la soo baxaan ciidamadu way marayaan way imanayaan wayna soconayaan qoriga qabtaan dib loo celin maayo intaas ayaan u sheegayaa fariinta ayaan gudbinayaa deegaanka dadka bulshada ku nool Jidbaale arintii Adhe Cadeeye oo hore loo dhameeyay ayuumaan xalxalkeeda u soconay aan jaranka kaabaya oo ku daraya meesha qori lama ogola nabadana waa u dhibaato qorigu oo meel laba qori laguma qaato haddii go'aan la isla qaatay qoriga la qabtaa dib u noqon maayo ninkasta qorigiisa ilaashado amaan ceelasha oo dhan haday kan tahay iyo kuwa kalaba qori lagama ogola wixii xalxal dhimanna guddidii hore loogu saaray baa dhamayn doonta Cabdiqani Maxamuud Jire gudoomiyaha gobolka Sool ayaa dhankiisa ka warbixiyay safarkan ay guddida nabadgelyada ee gobolka Sool ku gaadheen deegaanka Jidbaale waxaan u nimid waa kormeer nabadgelyadii iyo dhaqdhaqaaqyadii iyo sidii loo xoojin lahaa nabadii Adhe Cadeeye beelaha Siyaad Maxamuud ay ku gaadheen runtii aad waxaan ugu mahadcelinay odayaasha iyo deegaanka iyo dadka labada beelood aan u nimid sida sharafta iyo qiimaha leh ay nabadda u xoojinayaan qol walbana ay dhinaceeda uga adkeynayso waxaan leeyahay sii xoojiya halka ka sii xoojiya nabadda ka xumaynaya iyo kii xunna anaga fartan ugu fiiqa anaga soo qabanaha qarsanina kiina xun sida la sheegay dawladdu heshiis baa arrinta laga gaadhay heshiiskaasi muddo 90 isku dhow Adhe Cadeeye ka socday boqolaal sano wixii jiray baa lagu soo dhameeyay nabadda sidaan u fulinayna wax allaale wixii idinku aad ku heshiiseen afkiina aad ka tiraadeen wax ku kala qorateen dawladdu oo fulinaysa hadhow ninna yu dhibsanin insha Allah hubka yimid wax huba lagama ogola deegaanada la wada degan yahay ee dadka ehelka walaalaha ay iska soo galaan hub lagama ogola qorigii la arkana waa la qabanayaa noqon maayo waa qodob ceelashii cashintana waa la wada daaqaya wala wada cabiya wiligeedna la wada cabi jiray wax inta ku dheeraad cid soo gelisana talaabo dawladeed baa laga qaadayaa wixii aad waraqada ku qorateen aad wasaxdeen baan anagu fulinayna ciidan baanu shireenaa ciidan baanu sukeynaa ma jirto cidii qalad leh baan talaabo ka qaadanay meeshadan ugu taganaa ilaahayna waxa ka barnaa nabadda inuu noo xoojiyo liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanood.